السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه وبعد. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، ولا ليال سيدات أكتهم على ساعتين نحن سعودي برامج كيني أما سنة جروين كيني حفلة كيني سكر صارنا إنه سعودي أنا هذا كوي سنة الله عايز كل كم كوفر معي سنة دوسيتك أما هذا كوي سنة جروين كي أساس كي مؤسسة فعوينة مع فاونديشن يدوسي فعوينة عدا walaal oo labadooda mid kastaba dugsigu wuxuu jirsaday 7 sano muasasada waxay jirsaday 10 sano marka aniga xuskaas iyo dikriyaadkaas inuu Ilaahay wax xamdeen subhanahu wa ta'ala waxaan rabnaa inaan idin wadaagno waxyaabahan soo socda qodobadan inaan idin wadaagno markaan lahayn waxa kamid ah qaybaha koowaad biidnillaahi ta'ala markaan wada fariisanay maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda iyo deegaankaba waxaan u baahday baahiya in loo baahan yahay wax la yiraahdo xanaanada qaybta xanaanada caruurta ilmaha yar yar nugli aan farbaradka ah ee dugsiga iskuulka gaarin meel lagu xanaaneeyo ay waqtiina ciyaaraan waqtiina loo sameeyo in farti iyo higaadi iyo waxyaabaha yar yar ay barsaan dahaaradii iyo nadaafadii oo kale marka qaybtaana waan ansaxay nabi ilaahay taala iskuulku diyaar u yahay inuu qabto ardayda yar xanaanada waa qodobka koowaad waxyaabaha aan higsanayna ama aan gaarnay guulaha ay kamid yihiin baahidaasna waxa karana deegaanka inay ka jawaabaan iyo dadka ku hareeraysan deegaanka dariska la hadii rabaan fursad ay ka faa'iideystaan wixii faahfaahina waxa garbeyga fariin maamulka xigeenka iyo maamulaha iyaga soo faahfaahinta wixii faahfaahina iyo wixii istifsaar qof cidii u baahan iskuulka sida ogtiin wuxuu leeyahay Facebook page wuxuu leeyahay telephone toos soo wici kara WhatsApp wuxuu leeyahay waxa kale uu leeyahay YouTube channel waxa uu leeyahay TikTok channel wuxuu leeyahay Instagram انت يجي سوشيال ميديا انه قفكو استعمالي كرا بدل دبده جورنال سو خريري كرا سيجار اراديس فكريسا نلا وداغاي qaybta labaad iskuulka ku soo kordhay waxa kamid ah oo hore u lahaan jirayba qaybta dugsiga hoose waxbarashada primary-ga oo 4 sano ah manhajka anagu raacayna manhajka u dhigsan wasaaradda waxbarashada iyo hidaayada tacliinta sare oo kaana waa xabi asaas iskuulka lagu bilaabay waayo sanadka waxaan ku hordhiyay ma sheegnay qaybta xanaanada iskuulka qaybta saddexaad uu leeyahay waxa waaye dugsiga dhexe ama elementary-ga ama intermediate-ka oo asagana 4 sano waa darjaalaha waxa aan dhahno oo asagana 4 sano waxa kale oo xigta qaybta saddexaad iskuulka uu leeyahay ama afraad waxa waa qaybta dugsiga sare ama secondary school ama thanawi waxa loo yaqaano oo idan 4 sano aniga raacna manhajka wasaaradda ay u dajisay ama qararka manhajka iskuulka dhigana 100% waa manhajka wasaaradda waxbarashada iyo hidaayada tacliinta sare ee federaalka ah ee dawladdu u sameysay wasaaraduna ay ansixisay qaybta shanaad ee iskuulka uu ka kooban yahay waxa waaye qaybta waxbarashada daraasaadka islaamka ama in la barto diinta islaamka waxa jira dad waaweyn oo qaangaaro ah oo quraanka xifdiyay ama iskuulka u dhameeyay rabaan in aqoontooda sare u qaadaan marka qayb macahda oo diiniya ayaan ku soo darnay sanadkan biidnillaahi taala culimadii waa diyaar waxaan ka jawaabaynaa kaliya in la helo ardaydii haddii aan lahayn dad deegaanka ka yimid ama dadka ama u dhowba marka fursaddan waxay jirtaa maalmaha khamiista iyo jimcaha kooraska macadka la yiraahdo daraasaadka islaamiga ama diinta islaamka in la barto marka leena diinta islaamka la barto waxa kamid ah علوم الآلة أم لغة عربية from A to Z أو لبرنا نحويه بلاغة تفسير صرفيه وكلا وحالا من تفسير القرآن الكريم كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث وكتب حديث أمهات الستة هاين iyo dhamaan wixii qawaacid la xiriira diinta islaamka in la barto aqeedada la mid ah wax kasta marka ay ku jirta qofkii danaynayo marka rag iyo dumarba waxa waaye taa waa soo dhaweynayna wax shuruudana kuma xirna marka taa idin leenahay waxbarashadaas qof kasta ka faa'iideysan karo oo da kooban iyo xilli kooban ma jirto laakiin maalmaha la baranayo waa khamiista iyo jimcaha labada gelinba waayahay taa qaybta shanaad haddaan ka gudubno oo ahayd diraasaadka islaamka ama barashada diinta islaamka iyo fahamkeeda waxaa ku xigay qaybta lixaad oo ah qaybta barashada luqadaha af Soomaaliga af Carabiga iyo Ingiriisiga linguistiga la qofka inuu ku takhasuso luqadda uu barto oo noqdo afmaal hadduu noqon lahaa inuu suugaan ahaan u taabiyo luqadahaas Carabiga Soomaaliga Ingiriiska luqadda ku takhaasuso hadduu rabo inuu noqdo turjubaan inuu noqdo hadduu rabo haddii uu rabo inuu wariyo noqdo saxaafadii in luqadii uu noqdo qof luqadii takhasus ku leh iskuulka qaybahaas uu soo kordhiyay oo waliba gaarka saddexda luqadood Carabiga af Soomaaliga iyo af Ingiriiska
qofka raba looga bilaabo from eber ama bilow ilaa heer oo sare oo qofku gaari karo inuu noqdo nin shaacir ama gabiya ah nin wariye ah nin macnaheedu turjumaana ilaa uu gaaro oo koorsay qeybaas ugu jirta oo kusoo kordhinay waxaa qeybaha kale iskuulka uu leeyahay waxaa kamid ah toddobaad qaybta barashada kombiyuutarka iyo tiknoolajiyada casriga ah taa iyada insha Allah taala oo mustaqbalka dhawaan jeclaan inaan soo kordhino waliba aan sayna fasal dhan leedo computer lab biin ilaahay taala anagoo kaashanayna laga muxsiniinta dadka dibadda jooga inay qayb ka qaataan arrinkaas oo ardaydii isu noqon kaliya aqoonta la baranayo noqdo mid theory mid ama ahayn fikrada ay noqoto mid ituso itaabsiya oo hands on vocational oo ardaydii computerka ay ku shaqeyn karaan wixii Allah waxa ku baran lahaayeen biin ilaahay taala iyadana qaybahan rajaynay kamid yihiin qaybta sideedaad وقيبت برشاد ساينسكا يعلمي عافيماتك بإذن الله تعالى أيضا بإذن الله تعالى جل يمر بين ده فريد دونا قيبها عن سوى شغلي تطبيقات سديدات وهاي اكتساقالات قيبت برشاد فرسمة قعنتا مكان لنا وحبا عرفضات ذلك يكون قيسان أو حكامين الحنكي معناه اسمه فريامدي فوندينيمدي رنجي لمدي لا ترجيسون مدب قلنت غوريها بابورتا waxa ka soo qofka gacanta uu ka qabto farsamaha oo gaarish loo tago in biidin Allah taala in xaruntan laga heli doono sida uu raqsiyaabada biidin Allah taala ilaahay ka rajeynayna iyo laga muxsiniinta noo jooga dalka iyo dibadda inay kaalintooda qayb ay ka qaataan qaybta kale iskuulka ama muasasada ay leedahay kamida qaybta tobanaad qaybta la yiraahdo qaybta xisaabaadka ama xisaabiyiinimada ama hanti dhawrka واكاونتنس فاينانس ايكونومكس يا قفك انه برتو معناها علمي حساباتك نوع كسته اي تاي او كنوقده وليبا قف حريفه او بريعته او غاري كره انه نقضو مانتي دورك دولده حسابkiisa xisaabto sida uu yaqaano iyadoo qaybahan rajeynay biin Allah taala inaan mardhow in daafuri doono waxa ku xiga qaybaha kale la yiraahdo qaybta media ama journalism waa ognahay hada biin Allah taala sida ognahay sida degdegta leh استعمال التكنولوجيا أو هرمرتي إمانته أدرك كرتو ودماء أدونك أو فخرسن سوماليا كميتهاي قف كستو سوماليا أنا على هي أو أجر بغرسن إنه هيستو سوشيال ميديا كام هنقضي فيسبوك أو تويتر أما على جر تيك توك أكون أولياء وصوب بنديو معناها السجن مركا تا كدولة أنا مركا عرضتكي إنا معناها خط حرفت قفك وكش قيسته لقالك سبين كر علمي نقن كرته أنا لا أديك سرنك كلا ويقل عن marka dadka in laga nacaas laga dhiso aqoontaasna ay helaan ee baran karaan iyo wariinimadii qaybta kale ee xigta waxa kale la socda qaybtaas marka leena media and journalism marketing fundraising كلمة عن ميديا قفنا برتو إنه نقضاء يوتيوبر أما جورناليست قراء دوبا كلية إيه نقطة قيب سوق جينا نعس يعني بزنس عن نقطة مشاريع وهلا ميدا فند ريزنج مساجد ملاها المؤسسات التعليمية سيدا لقالوا قرونا إن قف حرفة لسي سكيلز وبريكو شقين كر قيبتك الله بيتوبناد وحاول leadership and management business school إذا وصل كان قفك إنه بروح لهذا هوجان كاس وحلو هوجامية يصير حلو معامله قيبها سكول كأمام مؤسسات أي كوتا مسي كميديين بإذن الله تعالى مركا أنت وضل مري وعفافين من إيريا إن شاء الله تعالى قربك مديك بحافريا ما مكحين دكسي وصل عسر عبد الله الأستاذ عثمان عمر علي أي بكر عثماني وعفافين إلى كلمة سانسين دونا بإذن الله تعالى قربك بدهن عافريا وملاه دكسي وصل عسر عبد الله الأستاذ علي عبد أبو بكر على الداهر أيقون إن شاء الله كلمة سانسين دونا وحنكور مري دونا دينك جميدك بإذن الله تعالى فلتفضل مشكورا مدنا ما ملك حقين. ودوهي قدومية نانتي سو شيء ما هو كجود waxaa sanadkan iskuulka lagu soo kordhiyay sababtiiskan waa waxyaabo badan ee fursad qaali u tahay deegaanka iyo waxyaabaha u dhow ama deegaanka dadka u dhow gaar ahaan xaafadda Taagane iyo Alfaraj ilaa xaafadda Macruuf waxaa lagu siinayaa inay dugsiga hoose dhexe sare ee Cabdi Walaal oo ku soo kordhiyay sanadkan koorsooyin aad iyo aad u fara badan oo kala ah dadkii aqoonta ka dahay oo misane da'dooda ee aad u iskaaga daba timid in fursad koorsanimo ee aqoontoodii sare ugu muujin karaan loo keenay iyo qamiisi jimco ardayda kala ah oo koobaadka labaadka saddexaadka ay kala la sii doono koorsooyin fara badan iyo casharo tayo iyo quality leh waxa kale oo iskuulka lagu soo kordhiyay waxay tahay qaybta caafimaadka oo galabtii markii la gaaray sagaalkii ayakana ay furan tahay oo diiwaangelintooda ay socoto sidoo kale aalada kale ah teknolojiyada sida kombiyuutarka iyo farsamooyinka ayakana lagu soo kordhiyay waxa rajeynayaa in farsamadaas iyo tacliinta sare ee iskuulka sanadkan uu ku soo kordhiyay ka faa'iideysan doonaan dhammaan agagaarka u dhow
xaafadda iskuulka Cabdi Walaal Primary and Secondary School gaar ahaan waxaan rajeynayaa hadduu Ilaahay raali ka ahaado in qaybtan qaybo kale oo ka duwan lagu soo kordhiyo sidoo sheegay ustaadka xanaanada ardayda ee khamiis jimca ah waxaan rajeynayaa inay inta in ka badan la soo koobi karin iskuulka lagu soo kordhi doono inta hadda uu soo sheegay bidnillaahi kariim tadallu gudbiya bismillahir rahmaanir rahiim dhammaan bulshooyinka ku dhaqan deegaanada ku hareeraysan iskuulka Cabdi Walaal dhammaan bulshooyinka jecel waxbarashada waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب سكول كان Cabdi Walaal وسكول أساس كيسة إيبيس كيسة هرعها لدغالنك عذر كلو يقان الجهلي كاسو لغدن لها إن بلشدة كردقان ديغانك Cabdi Walaal ديغانada ku hareeraysan inay helaan fursad waxbarasho taasoo ay uga faa'iideysanayaan si free ah ujeedkii laga lahaa alxamdulillah rabbil caalamiin qaybta ugu weyn waa laga gaaray taasoo ahayd in ardaygii amba gabartii ama wiilkii shalay waxba aanan fahansaneyn wax qori karin waxba akhri karin maanta in uu waxba akhri karo wax sharxi karo ficiisana uu wax la qaybsan karo deegaankan mar waliba wuxuu dhibka ugu weyn oo ka haystaa wuxuu ahaa dhinaca tacliinta ee waxbarashada taasoo ahayd in ay bulshada ayna helin wacyigelin ku filan oo xagga waxbarashada ah alxamdulillah rabbil caalamiin dadkii iskuulkan ka qayb qaatay basiskiisa amba gundigiisa waxaa qayb weyn ka ahaa gudoomiyaha dalka ugu fadhiyo Ustaad Cabdikariim maskaxda iskuulkan asaaskiisa isagaa lahaa علمي ما أنت لو انتفاع أنا إلهي كسكو صوبتي سجى حاج عبد الله يدكي كلا ما أنت قيبت كلها سكول كان إنه ما أنت هير سر سكول أرديس أي جوان هير أي امتحانات وسارات وحبرشة أنت كقيب جران لما أنا تجوين كصوب بحر أي نقطة بعصي رؤانتي وحبر أرض لقوك يعني ما أنت أنا وحأفضل إن هرمركي هرلوسو سمي أنت كد النت amba inta asleenaha way ka maqan yihiin aan dib ugu soo siyaadino si haddana maanta qaybtan kale ay uga faa'iideystaan mar walibana waxaan diyaar u nahay in dadka ku dhaqan deegaankan inay helaan waxbarasho ku filan inay helaan aqoon tacliin waliba aan lagu xireynin wax la yiraahdo shardi lacageed baahi lacageed idoo lagu xireynin oo la dheheen ardaygan كوستيga oo bixina amba lacagta oo laga qaada intaas doorsanayn albaabka ka baxo iyadoo la dhehaynin iyadoo ardayga lagu dhiirigelinayo waxbarashada ardaygii maanta kaalin kale isagoo lagu abaalmarinayo hadiyado ardaygii akhlaaq wanaagsan leh lagu abaalmarinayo ardayda qaar fursado waxbarasho oo dheeri loogu daro ayuu iskuulka mar walba diyaar u yahay ilaahay ayaa mahad kale oo deegaankan u dhaliya dad u fikira deegaan walibana wuxuu looga baahan yahay amba laga maarmaan ah dad u fikir inuu helo meel kasto aad arkaysid maanta inay horumar gaartay amba iftiimaysa amba qurux badan amba hadii ahaa lahayd niyo daaraha waaweyn ee maanta aan u tahriibin rag annagoo kala ayaa u soo sabray tacliin geliyay waqti geliyay hanti geliyay naf u huray iskama imaan hal habeen iyo hal maalin meelahan quruxda badan ee maanta anaga aan la yaabanahay ee anaga wiilasheena qaar la tacajubsan yihiin oo tahriib bad ay ugu dhamaanayaan dhalinyaro annagoo kale ayaa u soo dhafray waqtina ku baxshay annagana waxaa diyaar u nahay qaybta aan bulshada ka leenahay ee ah dhinaca tacliinta ahna dhinaca ugu weyn ugu muhiimsan inaan qayb weyn ka qaadano ilaahayna waxaan weydiisanaynaa mar waliba inuu nagu siiyo garab حايل مرول إلهي سبحانه وتعالى وحو إسقى قدر بعدها تاني قدر الله أيه لكن صوبته هذا أنا قال قف كستو سكول كان قيب كسو قاتي مالين 10 كسو دقي مالين 3 كسو دقي رمان وحان دهينا أنيقو مترايو قدوميها آخياشا وما سنتين أبالك إنكم قد مايو إلهي وحان كغير جينينا إنه إذا كوكو بدلو
جنة الفردوس ودكوب بدل الدون كان أدخل لي بانتان أيان الله سبحانه وتعالى اللي هو يديننا مركب الشدة وحان مر لبعض كبرار جناية سيدي هراء وقفا إيديستين وحبر الشدة إني وقفا إيديستين وحبر الشدة عافمات كله فرصة له الصحفي النمذا له علم الدين له دمان اسمه جفت أو هدنا أنا أهين وح لقى رب العق يقيمه أم بلقى رب إلا لقى سمي جناح سلا جسم أنا أهين إما وح برا بيجينا كل انتفاع عليك دتك ديجان كانوا كل انتفاع هكفى يستانو لحد هأوسو حتانو هأوسو تتمانو وحبرشان السيدة أنا معه إن أي راحته قفكو وحبرنا عيو وحب هاي الصبر فربضا وحبضن أي كلسو قد بناناي عقبضا بدن أي على كل ميسا هدي وحبرشان هذا أصبر كريم بري وحد كصبر دونتا نرال فخري دول النماء أي كصبر دونتا تاسو adiga aan hadhow aadan dib u mahadin doonin jiilka ka dambeeyana aad uga sheekay doonto dhibka ilaada waxbarasho la'aanta qof waliba oo deegaanka degan maanta heli karo fursad uu wax ku baran karo iskuulka waxa uu shaqeeyaa 3 gelin ayuu shaqeeyaa subaxdii galabkii khamiistii iyo jimcada alxamdulillah waxaan rajaynaynaa inaan ku soo darno qayb habeenkii ah oo dadka shaqeeya maalintii aan uga faa'iideynayna inay ayagana wax ka faa'iideystaan kaliya iskuulka cadda walaal uma furna caruurta yaryar iyo dhalinyarada uma furno dadka waaweyn ee maanta waxbarashada waqtiga u helin jecel inay maanta wax bartaan facooda asaagooda ka daba tagaan weli waqti haystaan waa weynaaday macna ma sameynayso da'da waa tiro oo kaliya laakiin adiga kugu xiran tahay go'aanka aad qaadanaysid iyo sida aad qaadanaysid adiga kugu xiran tahay marka waxaan idinku baraarujinayaa dadka deegaankoow xareed waxa la doogtaa inta roob ku daayo iskuulka cadda walaal inta uu idin taagan yahay hiil iyo hoo idila garab taagan yahay macallimiin heer jaamiciya ee jaamacad soo dhamay idila garab taagan yahay wax kastoo aad dalbataan maanta oo cilmi ah macallimiin khibradooda leh in ladinkeena la idila taagan yahay inaad maanta ka faa'iidaystaan inaad maanta garabka aad u dhigataan إنا ما أنت شكر مهدلين إلهي سبحانه وتعالى وعلسان تدكي ما أنت أبال كان لهاين أدو أبال علسان مهستندين هذا كنا قرينا دد كو أبال دعا أم بدد مركي دنتو دقاران دبرك الجيدي أيضا نقرينا اسمك عدولا ودك أساساك ومفرديان يعني ما أفرديان إلا أي هبلا بروفيت كسوغايا أم هبلا بريكما على وحق كسوغايا أبال ما لكن هذيك على جرب إنا قريتي قفك أبال بكوجلنا وإنا حسوسنا تا أنت هذا الكائن بدية مرة بق سكول كان عدا ولا المرو لبنه يذكو إذن دياريا معنا يذكو برا رجنايا يذكو وعنايا مرو لبا إنها تكفى إدستان عروتين وقفى إدستان أرضي غير ما أنت مفهم سنة ما ويل كير إن الله يرد مفهم سنة معانك وحبرشة هذا بس والدين توي فهم كران معانك وحبرشة اللي يا مات معايا لي قفك عن وحبرانين يقفك وحبرتي فرق يقول أنا جرا وادريم كرنا فعليا وأنا دريم كرنا قابك عن هذا عن كل شقيرين وأنا فهم كرنا مركزاتك وحن كبرى رجينا إني وحبرشة كفايستان سكول كوسو بيران قرب استاجان ظروف سكولك هاي سحتا أيضا لو فيرني الله ما سكولك وحبرش الله قاطو علمي الله قاطو لو نضل قاطو علمي أو لقى كلا عربي هذا ما أنت ما تدو أتكاتو عشركو أتكاب هذين ما أنت عربي وأتكاد أنا وحن بريك يا عربي سك وقت يا إيمان دون عادي أنا نقدر تمعلم ما أنت وحشة محايل تصارع وحلا سوقاتا عيلك لجو دان صدورانت waxaa gidaarkiisa ku wareegsan dhagax ayaa ku wareegsan dhagaxaas qofkii arkay xiriga wadaanta wuxuu jaray dhagax sidoo xirig ku jaray waa ku celcelinta badan marka adigana waxaad gaari kartaa maanta hadafka maanta faca uu rajeenayo midka weyn waxa laga yaabaa fahamkaaga inuu ka badan yahay maanta dad badan oo adiga kugu hareeraysan wax waliba waa niyadiina ku shuba iskana dhaadhiciya inaad waxaan awoodaan barakartaan tabartiina tahay
guryaha la fadhinina guryaha haddaad fadhidid dhibka adigu ku yaala intaad guriga fadhin lahayd waxaan idinku baraarujinayaa inaad waxbarashada ka faa'iidaystaan marar badanna qudbooyin sidaan u qiimo badan waa laydin soo jeediyey dad badan oo wanaagsanna way qaateen intaan hartayna waxaan rajaynaynaa inay imaadaan ubadkooda uga faa'iideeyaan idinka xataa imaada ka faa'iidaysta diyaara idin lanahay inaan wax idin barno diyaara idin nahay inaan waqti idin siino diyaara idin nahay cilmiga intaasoo sano aan juhdi iyo dadaal kusoo bixinayn inaan idinka maanta aan ilaahay idinkugu anagoo u dhawaanayna idinkugu barno si ilaahay dartiis ah mar walibana waxaan hadalka kusoo celinaa waxay tahay waxbarashada waa furaha nolosha mar walibana waa ognahay hadalkan intaasaan kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كلمتي وانا سند امام الله دكسي وصدح سرعة ولا الاستاذ علي عبد ابو بكر على داهري ولا سيحادي وناقي قوارنت سكو جرتي الله نوع فعلان قدقو وتيلا قرآن كأولية الذين يسمعون فتبعون أحسنه هو دقيستا خير كان وناقي نفعلان قدقو وخير كاسي ورانا داسبا waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeena iyo xafladeennaba waxaan naga maqan maamulihii ugu horreeyay iskuulka أستاذ عبد الله علي علمي أما أستاذ عبد الله علي محمود راجي أما أستاذ عبد الله علي مذوبة معمولين في فجور ري أما دامود نرجع المنتظن وجو ذلك إنجليز كإنقاذ أونلاين أو كقاعد كلمة ديسة مركا إن شاء الله تعالى تاسمح ودين دونا فرصة غير كبرنامج كاسينو إن شاء الله تعالى هريت نوصمعيه هذا كيسيو دوبنا معناها على سوق كقاعد دون خط أونلاين كأما تلفون فوقنا أرجع سوق كقلايو تعال فرصة بدأ بإذن الله تعالى فرصة غير هريت برنامج كأنه ودين دونا إن شاء الله تعالى قرحنت دي ذلك دي دمان معمولاش يجور ري معمول كأنه ده ينكر قاعد برنامج كامبا سيجودي يسجار عناد مرت الشرفته كاميرمان عد كست برنامج كان سوق رئيسي قبل قابسي وعلينا في ميزان حسنات جزاكم الله خيرا وأدنى سنتي وقت كنا قالقة جودي قاعد بعسان ذلك أجلسان إلى هذه كما هبابيو أجر حسن الله ابن سيو هوشون ما تمتكو أجمع حفلة برنامج كان يفرق أنا سوون نمد ومد معني كسبين كسام أسود جدا وكل فكرة وكل فرنا وحان ربنا وسطات كنا شيء إلى هلا شيء سيجنا وحان ربنا وأنت كليه marka insha Allah ta'ala ilaahay ana barakeeyana xifdiyo Soomaaliyeena ugu maanta baahida ka jirta duruufta ka jirta dibaad culayska ka jira wax looga bixi karaana waxa ay tahay jahliga in laga wado wax la baro haddii rabta dib u akhriya ninka qarlaas iyo wasiirkeena waxbarashada iyo barbaarinta Ustaad Faarax Abduqaadir dhowr jeer la waraystay wariyaal badan ay waraysteen waxa uu dhahay Soomaaliya dhibaatadaas loo saari karaa daan xasuusan dib loo firi kilbadiisa waxay ahayd جهل يقولك على قصر ذاتك وحالة برا وحبرشوا التعليم وحبرشوا education التعليم وحبرشوا مش هتستعجل تهدي وحلا برتو تبصروا سوق هذا سوق كابنا قرآن كريم قبلت أفرت عن دب وأجنو صورة دجور رئيسي يعيد يقول نمسك على سلة ويدين عيد ولا زود يجي اقرأ لما محمد أقري نقول معاه أمي يعني وإحنا ما أقرين لكن أمي دار الله هذا قفرك وعقري وحقره وحبرته أيوك بحكرة جهلية نعكس سوية مركب عن سكوب برجلنا نفته إذا إيه أنت ما أنت إلى جوك تبي أنت مقلي سواني دام أنت تابع إن لو قلت ذا قفك إنه وحبرته الله بدأ لنا عبادة دنيا رتنا فائدة اللي بانته أو هرمر جارته أقوانا وبهانته هذا رت آخره والجنة وين جاي إلى رلان شيسة وعلو جار أقوان لا بدأ جرب مركز صارت الدنيا آخر اللي بان الدنيا آخرات ربطه علمي كوري علم ذو بهاي سوسات كنوشة صبر دلقات يد كيس إلى أنا لكم دلقات كيس عمل علمي قاضي عمل قاضي الله أنفع أقبل إلى أنا قديم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.